halkani waa BBC Afrikada Bari saacadu waa 7 aroornimo oo gow ah waxaad naga dhageysan kartaan mowjadaha gaagaaban FM-yada iyo bogga internetka ee bbcsomali.com. kulanti wacan wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo Isniin ah bisha May waa 25 ee sanadka 2020 anigoo ah Kawthar Maxamed Cabdullaahi ayaa idin soo jeedinaya idaacadda subaxnimo qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayadana waxaa ka mid ah Ilhaan Cumar oo ku guuleysatay doorasho xisbigeeda dhexdiisa ah Ra'iisul Wasaaraha Britain oo lagu dhaliilay difaacidda la taliyihiisa lagu eedeeyay inuu jabiyay xayiraadda saaran wadankaasi fayraska corona oo la sheegay inuu si weyn ugu faafayo xaafad ay Soomaalida ku badan tahay ee magaalada Minneapolis koonfur galbeed oo sheegtay in cudurka corona uu ku faafay inta badan degmooyinka maamulkaasi Puntlandna waxa ay dagaal xooggan kula jirtaa ayax laga cabsi qabo inuu reebo weyn gobolada Puntland oo dhan waa maray kan hadda laga tacaalayo waa mid waaweyn oo ka yimid dhinaca Ethiopia oo ahaa mid masaafo ku socdo dheeraynaya nugaal iyo soolba aad looga buufiyay qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan ciyaarihiin ay ku jiraan ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddan subaxnimo oo uu soo saaray maxamed cabdiraxmaan sheekh marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Axmed Badar maatanid Kawthar xukuumadda Giriiga ayaa maanta waxa ay dib u furaysaa jasiiradihii caanka ku ah dalxiiska taasi oo tilaabadii ugu dambeysay ay ku qaadayso xayiraadihii la soo rogay si loo xakameeyo fayraska corona balse inta badan duulimaadyada caalamiga ayaana dib u bilaaban doonin ilaa bartamaha bisha Juun markaasi oo hoteelada dib loo furi doono dalxiiska ayaa waxa dhaqaale badan uu ka soo galaa dalka Giriiga Ra'iisul Wasaaraha dalka Britain Boris Johnson ayaa waxa lagu eedeeyay in uu mijaxaabinayo dadaalada ay dawladda kula dagaalamayso fayraska corona eedeyntan ayaa timid kadib markii uu Ra'iisul Wasaaraha difaacay la taliyihiisa oo jabiyay xeerka xayiraadaha la soo rogay balse Johnson ayaa waxa uu sheegay in Dominica Communiska uu dhaqmay qaab sharci ah markii isaga iyo xaaskiisa oo qaba calaamadaha cudurka ay safar galeen dawladda Mareykanka ayaa waxay joojisay safarada dadka ka imanaya dalka Brazil oo imika kaalinta labaad kaga jira tirada dadka uu soo ridkay fayraska corona guud ahaan caalamka afayeen u hadashay aqalka cad ayaa waxa ay sheegtay in dadka aan Ameerikaanka ahayn aan loo ogolaan doonin in Mareykanka ay u soo galaan ay ka soo tallaabaan xadka Brazil in ka badan 360,000 oo qof ayaa ilaa imika la xaqiijiyay in cudurka corona uu soo ritay dalka Brazil madaxweynaha dalka koonfur Afrika Cyril Ramaphosa ayaa waxa uu ku dhawaaqay in muddo 7 gudihiisa ay qaadi doonaan xayiraadaha la soo rogay inkastoo wali ay si aad u sareyso tirada cudurka dadka uu soo ritay shaqaale badan ayaa loo ogolaan doonaa in ay shaqooyinka dib u bilaabaan waxaana la qaadi doonaa bandowgii lagu soo rogay dalkaasi in ka badan 22,000 oo qof ayuu soo ritay fayraska corona dalka koonfur Afrika ugu dambeynna ciidamada dalka Ivory Coast ayaa markii ugu horeysay waxay ka fuliyeen xuduudda ay la wadaagaan Burkina Faso howlgal ka dhana kooxaha mitidiinta howlgalkan ayaa waxa si wada jira u fulinaya Burkina Faso iyo waliba xukuumadda Ivory Coast waxaana sida saraakiisha labada dhinac ay sheegeen lagu dilay in ka badan 30 ka tirsan mitidiinta halka kuwa kale lagu qabtay warkii dunidana waa naga intaan dib u ku celiyo Kawthar Maxamed aad baad u mahadsan tahay Axmed Badar markana u diyaar garoow qaybaha kale ee idaacadeena subax wanaagsan mar kale dhageystayaal ku bilaabnay Ilhaan Cumar ayaa saacado ka hor ku guuleysatay wareegga kooban ee codbixinta Israa'iilka uu xisbigeeda ku xulanayo musharaxa degmada shanaad ee kursiga ay hadda ku fadhido ku matalaya doorashada Koongareeska ee lagu wado inay dhacdo bisha November waxaa la tartamayay 4 musharax oo ay ka mid tahay gabar Soomaali ah wariyasiyaad Saciid Saalax ayaa ka waramaya muhiimadda guusha ee xildhibaan Ilhaan Cumar waxa ay ku guuleysatay doorashadii codeynta ahayd ee shalay dhacday 65% oo ay ku soo baxday wareeggii koowaadba ee tartankan waxaana kaalinta labaad galay musharaxa lagu magacaabo Antonia Melton oo ah qareen madow oo degan gobolkan Minnesota qareenkan maalmihii ugu dambeeyay waxa uu cambaareen adag hawada u marinayay xildhibaanada Ilhaan Cumar uu ku tilmaamayay qof aan waxba qabanin iyaduna ay dhankeeda iska difaacaysay
codbixinta xisbiga dimuqraadiga ee shalay dhacday waxaa loo sameynaya qaab email ah oo socotay 9 maalmood oo la soo dhaafay maadaama uu jiro xanuunkan COVID-19 aysan jirin howlo la isugu imaanayo oo lagu codayn karo ayaa waxaa loo sameeyey qaab ka duwan oo ah dadku inay ku soo codeeyaan khadka internetka waxaa xusid mudan in tartankan ay Ilhaan la tartamayeen ilaa iyo 4 qof oo uu ku jiro qareenka aan soo sheegay iyo gabar kale oo Soomaaliyeed oo iyadana lagu magacaabo Leyla Shukri Aadan oo heshay codad aad u yar haddii qareenka uu sheego inuu ilaa iyo bisha August uu tartankiisa sii wadanayo Ilhaan waxa ay la kulmi kartaa tartan adag laakiin haddii uu ku qanco guusha maanta Ilhaan waxa ay u gudbaysaa bisha November ee sanadkan dhammaadkiisa doorashada guud ee dalkan Mareykanka aad buu mahadsan yahay Siyaad Saciid Saalax oo Minnesota jooga ayuu ahaa markana ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa lagu dhaliilay difaacidda la taliyihiisa sare Dominic Cummings kaasoo lagu baaqay inuu iscasilo kadib markii lagu eedeeyay inuu jabiyay xeerarka bandowga dalkaasi Johnson ayaa sheegay in Cummings uu u dhaqmay si sharciga waafaqsan markii uu 100 kilomitir gaari ku waday xaaskiisa oo qabtay astaamaha fayraska corona wariyaha BBC-da Mawlid Xaaji Cabdi ayaa sheekadaasi la socday oo iiga waramay arrintan ku aadan la taliyaha Boris Johnson ninka la yiraahdo Dominic Cummings waxay dhacday Sabtidii isaga iyo xaaskiisa oo looga shakisan yahay coronavirus inay qabto ayaa waxay sameeyeen magaalada London ay ka baxeen ay wiil ay dhaleen waxay u wadeen deegaanka la yiraahdo Durham oo 250 mayl u jira London sharciga waddankan ka jira ee hadda ku aadan xanibaadda coronavirus-kan wuxuu dhigayaa in dadku ay guryahooda joogaan oo aan isbooqan karin inkastoo mar dambe ra'iisul wasaaruhu uu soo saaray go'aan ah in qofka dadka gurigiisa aan kula noolayn uu hal qof la kulmi karo meel bannaanka ah laakiin waxaa la leeyahay Dominic Cummings wuxuu aaday qoyskiisa si uu ugu geeyo wiilkooda oo markaasi uu ku doodayo in haddii ay xaaladdu xumaan lahayd ay dhici lahayd markaa in uu ilmuhu dayac ku dhici lahaa laakiin arrintani aad baa loo hadalhayaa ra'iisul wasaarahana waxaa loogu baaqayay in uu ninkani shaqada ka eriyo isla markaasna isaga qudhiisa waxa loogu baaqayay inuu iscasilo marka waxaa la leeyahay wuxuu ku xadgudbay qaanuunkii waddanka u degsanaa ee dadka inaanay guryahooda ka bixi karin weliba haddii ay dhacdo in qofku uu isaga shakiyo coronavirus wuxuu dhigayaa qaanuunka waddankani ee hadda la xiriir dhinaca koronaha in muddo 14 maalmood qofkaasi uusan guriga ka bixi karin haddii xitaa qof ka mid ah qoyskiisa ama guriga dadka kula nool cudurka looga shakiyo ama laga helana waxaa markaasi lagu darayaa 14 kale marka waxaa la leeyahay qaanuunkaas ayuu ku xadgudbay dhinaca warbaahinta markaad fiirsana aad baa arrintani looga hadalhayay laakiin ra'iisul wasaaraha waxaa moodaa inuu difaacayo uu leeyahay ninkani wuxuu ku dhaqmay hab mas'uuliyad ku jirto sharcigana wuu maray mana jirto leeyahay cadaadis aan saarayo inkastoo ay jirto in baaqiya soo baxayaan Mawlido marka ra'iisul wasaaraha difaaciisa muxuu ku saleynayaa ra'iisul wasaaraha wuxuu ku saleynayaa difaaca uu difaacayo Dominic Cummings oo ka mid ah ragga ugu muhiimsan ee xagga la talintiisa in uusan jabin qaanuunka oo uu mas'uuliyad ku dhaqmay wuxuu leeyahay waa la fariistay waxana waan su'aalay igama muuqato inuu xadgudub uu sameeyay wuxuuna leeyahay wuxuu sameeyay mas'uuliyaddaasna dabcan wuxuu ula jeedaa in ilmaha haddii aabbaha iyo hooyadu ay dhibaato dhici lahayd ilmahaasi uu dayacmi lahaa marka inuu ilmaha meel ku hubsado ayuu ula jeedaa inkastoo uusan caddayn laakiin hadalka sidaas ayaa loo fasiranayaa jaraa'idka qaarkood Kawsar waxay soo qaateen arrintii wiilkii Soomaaliga ahaa ee 13 jirka ahaa oo aynu ognahay isagu waalidkiis aysan la joogin la duugay oo aysan dhici karin in markaasi loo tagi karo marka waxaa la leeyahay maxay ku kala duwan yihiin dadka aan u tagi karin dadka ay jeclaayeen inay isbitaalada ku booqdaan inay daryeelaan inay xitaa duugaan iyo ra'iisul wasaaraha qofkani u dhow maxay ku kala duwan yihiin baa la leeyahay dawladdana qaanuun ahaan ma dhigan guriga haddii ay carruur ku nooshahay maxaa laga yeelayaa lama marka waxay dhici karta in Dominic Cummings uu taa ka faa'iideysanayay bacdama aanu jirin qaanuunka meel kaga qoran tahay carruurta qaabka laga yeelay inkastoo sharciyada ku saabsan coronavirus uu leeyahay ilmaha guriga ku nool waxay ka mid yihiin dadka guriga ku nool haddii dhibaato ay dhacdo markaas mas'uuliyaddeeda waxa xitaa loo saari karaa golaha deegaanka degmadaasi marka arrinta waxay noqotay arrin weyn oo ra'iisul wasaaraha shirkiisa jaraa'id ee shalay galab oo Downing Street ku qabtay si weyn looga hadalhayay warbaahinta baraha bulshada aad baa looga hadlayaa siyaasiyiinta dhaliilsan ra'iisul wasaarahana waxay arrintan leeyihiin
maxay ku kala duwan yihiin malaayiinta qof iyo ra'iisul wasaaraha dadka ku dhow sharciyada jebinaya. waa tahay aad buu u mahadsan yahay Mawlid Xaaji Cabdi ayuu ahaa. halka aad warka kala socotaana waa BBC. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay idaacadda subaxnimo ayaad weli dhegaysanaysaan. markana saraakiisha caafimaadka ee magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in xaafadda Cedar Riverside ay sida weyn u degaan Soomaalida uu faraba'an ku hayo fayraska corona. tirakoob la sameeyey ayaa muujinaya in 6% kiisaska magaaladaasi laga helay xaafadaasi, gaar ahaan dadka ku nool dhismayaasha dhaadheer. maxamuud axmed nuur waa wakiilka baarlamaanka Minnesota ku metela deegaanka 60B. waxa uu iiga warramay dhibaatada fayraska corona uu ku hayo xaafadaasi. cudurka loo yaqaano coronavirus saameyn weyn buu ku yeeshay xaafadda aan aniga matalo. dad badan isbitaalada ay ku jiraan. haddaan kula hadlayo qof aan garanayo baa hadda loo qaada isbitaalka oo maaragtay ICU ku jiro. macnaheedu waxa weeye cudurka markuu halis gaaro markaasuu maaragtay qof gaaraya meel uu maaragtay u baahdo neef oo ama ventilator. taas baa maaragtay hadda nagu haysaa dhib xaggeena dadka bulshada Soomaaliya. waxaad ii sheegtay in Soomaalida ay ku badan tahay xaafadaasi, marka maxaa sabab u ah in sidaa uu ugu faafo cudurka? dadka badana xaafadda degan ma aha dad oo guri gaar oo degan. waa guryaha oo apartmentka oo dad badan ay wada degan yihiin ee wada isticmaalayaan elevatorka, ama ha noqoto meelaha maaragtay dharka lagu dhaqdo, ama ha noqoto dad badan oo ka shaqeeyo shaqooyinka daruuriga ah. markaas way fududahay qofkii inuu banaanka cudurka ka soo qaado oo xaafadda la imaado. dadka waayeelka la degan ee dadka maaragtay caafimaadkooda dhiito, dadkaas bay maaragtay halis gelinaysaa. cudurkana si fudud buu ku faafaa gobolka Minnesota. dadku aad maaragtay saameyn ku yeeshay waa dadka meel u kooban oo dad badan oo wada degan. marka walaac intee la eg ay arrintaasi idinku haysaa? runtii shakhsiyan ahaan anigoo matalaya xaafadda walwal badan buu igu hayaa. si toos ah waxaan ula xiriiray gudoomiyaha gobolka Minnesota Tim Walz iyo waxda caafimaadka. muddo dheer aan ka wada shaqaynaynay wixii aan wada qaban lahayn. bulshada dad oo maaragtay qaybaha kala duwan oo culamaa udiinka iyo hay-adaha oo maaragtay samafalka oo magaalada ka diiwaangelsan oo aan ka wada shaqaynaynay wacyigelin iyo baraarujin dadkii inay ka taxadaraan goobaha maaragtay laiskugu imaanayo. waa tii bandow gobolkan uu ka jiray masaajida lasoo xiray, goobaha laga shaqeynana lasoo xiray. si hadda mar dhow dib u furmi doonaan. taas baa walwalka maaragtay sii ziyaadinaysaa maadaama maaragtay bandowgii laga qaaday goobaha dadka ay tegi jireen si tartiib ay u furmayso. marka ma jiraan dhinacyo lagu kalsoonaan karo oo diiwaangelinaya tirada dadka Soomaalida ah ee uu fayraska ku dhacay ama uu ku dilay deegaankaasi? sidaan u ognahay sharciga gobolka Minnesota ma caddeyn karo oo shakhsiga uu ku dhacay. sababta waxaa waa xalimaad oo xagga maaragtay sharciga ka imaanaya. laakiin waxaan ka codsanay waxda caafimaadka inayna siiso si toos ah tirada ay ku dhacday Soomaalida, ama qofkii oranayo Soomaali baan ahay ama luqadda ku hadlaya af Soomaaliga in tirakoobkaasna la siiyo. laakiin sidaan u ognahay xaafadda Cedar Clip ma ahan. xaafado badan aan ognahay oo dad badan uu ku dhacay dad badan oo u geeriyeen waa jira. Allah u naxariisto. maxamuud, waxaad ka mid tahay madaxda laga soo doorto deegaankaasi, marka maxaa idinkaga qorshaysan xakamaynta fiditaanka cudurkan? waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdo inuu qofka hadduu xanuunsan yahay ama hadduu xanuunsaneen uu rabo in la cabiro. khaasatan meelo badan baa hadda furan oo bilaash oo qofkii lagu soo cabiri karo, in dadku loo soo dhoweeyo in la cabiri karo. qofka xanuunsanna maaragtay in meel gooni ah loo helo. taasaytan waxay u baahan tahay inaan iskaashano waxda caafimaadka gobolka Minnesota, magaalada Minneapolis iyo degmada Hennepin County. iskaashi baa hadda noo dhexeeya sidii dadkii maaragtay aan u badbaadin lahayn. maxamuud axmed nuur, wakiilka baarlamaanka Minnesota ku metela deegaanka 60B ayuu ahaa oo iiga warramayay dhibaatada fayraska corona uu ku hayo deegaankaasi. markana koonfur galbeed, wasaaradda caafimaadka ee maamul goboleedka koonfur galbeed ayaa sheegtay in fayraska corona uu si weyn ugu faafayo deegaanada hoos yimaada. agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulkaas Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayaa BBC-da u sheegay in 87 qof ay cudurka ka heleen toddobaadyadii lasoo dhaafay, halka 5 qofna ay u dhinteen. Dr. Xuseen ayaa khadka telefoonka ugu warramay wariyaha BBC-da Cabdiraxmaan Xaaji Cadow.
xaaladda guud ee koonfur galbeed cudurkan covid-19 marka aan ka hadlayno guud ahaan tiradu waxay noqonaysaa 87 waxaana dhimatay 5 waxaana laga helay 35 oo Baraawe ah 29 oo Marka ah 15 oo Baydhabo ah 5 Afgooye ah iyo 3 case oo Buur-Hakaba ah guud ahaan tiradu waxay isku noqonaysaa 87 case inta dhimatayna waa 5 case wax recovery sameeyay ilaa hadda ma jiro jawaab noogu maqanaa jiro lab ku maqan aan ka warsugeen doctor waxaa jira warar sheegaya in cudurka uu si aad ah uga faafayo koonfur galbeed si ka duwan dowlad goboleedyada kale marka waxay leeyihiin maadaama aynu xafiisyada caafimaadka ama gudiyada arrimahan u qaabilsanaa aynan qaadin tallaabooyin ku habboonaa arrintaasi maxaad uga jawaabi lahayd waxaan ku jawaabi lahayn way jirtaa arrintaas haddeertaan waxaa socda wacyigelin aad u ballaaran oo gobolada dhan ay ka wada socoto sidoo kale waxaan wadnaa in la furo xarumo gaar ah oo lagu karantiilaayo cudurkan covid-19 ah xarumaha hadda noo furanna waxaa waaye xarunta Baydhabo Xudur iyo Afgooye intaas hadda shaqeynayaan dadkina waxay u baahan yihiin wacyigelin dhammaystiran oo dhinac walba ka imaanaysa dadku waxay aaminsan yihiin waxyaabo khuraafaad ah oo hore loogu sheegay si looga dhaadhicin way adag tahay ka dhaadhicinteedii hadda ku guri jirna marka koonfur galbeed ahaan dadka cudurka laga hela amaba cudurkan viruska marka aad baartaan aad ka heshaan halkee markaa lagu dabiibaa oo xarumo intee la eg baa marka aad idiin diyaarsan waxaa noo diyaarsan 3 xarumood bokool waxaa ugu talagalnay Xudur in lagu dabiibo Baayna waxaa ugu talagalnay Baydhabo in lagu dabiibo Lowa Shabeellana waxaa ugu talagalnay in lagu dabiibo Afgooye Baraawe iyo Marka kiisaska laga helay maadaama ay bateen waxaan go'aansanay 2 xarumood oo cusub oo degdeg ah in laga furo Marka iyo Baraawe wacyigelinta iyo arrimahan dabiibka iyo la tacaalida cudurka iyo baaritaanada markaynu ka soo noqonno ma jira marka ka maamul koonfur galbeed ahaan iyo ka gudi ahaanba wax aad qaadeen oo tallaabo ah oo looga hortagayo ama lagu xakamaynayo faafitaanka covid-19 marka laga soo tago wacyigelinta iyo dabiibka waxa aan hore u qaadnay waxa waaye kaliya in xarumihii ay wax ka dhaceen assessment aan ku sameeyno oo la soo ogaado qaabkay wax u jiraan dadka meesha ay ka soo galeen iyo qaabkay ugu faaftay iyo qaabkay loo xakameyn lahaa hadda waxaan ogaanay meelaha ay laga soo galay iyo qaabkay wax u imaadeen isla markii waxaan go'aan soo saarnay oo ah in gawaaridii oo dadka qaadaya rakaabka qaadaya dhan in la joojiyo gawaari xamuul ma ahane gawaarida kale aysan shaqeynin meelaha point of interest la dhigo maxaa la screening si dadka oo xamuulka xataa la socdo gawaarida xamuulka ah loo baaro oo ayagoo bad qaba ay u soo galaan magaalada haddii laga shakiyana si loo qabto ugu dambeyn maamul koonfur galbeed ahaan maxaa idinkaga qorshaysan xakamaynta iyo la dagaalanka viruska corona ee kusii faafaya koonfur galbeed shacabka ku nool Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan koonfur galbeed jaaliyadaha dibadaha jiro waa inay maxal lahayd dadkooda iyo wasaaradooda ay garab siiyaan kaliya anaga waxaan garab ka helnaa wasaaradda caafimaadka federaalka marka laga soo reeb tago hay'ado si gaar loo leeyahay waxaan rajaynaynaa in ay maqli doonaan dadka jaaliyadaha ku nool dibadaha si ay maxal lahayd walaalahooda dhibaataysan ee aan tabartan u haynin inay xarun dhammaystiran u abuuraan u sameeyaan si loogu abuuro oo loo sameeyo oo xarumahaas ay u noqon lahaayeen xarun lagu kafargarayn karo qofka qaba cudurka covid-19 agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka maamulka koonfur galbeed Dr. Xuseen Maxamed Daahir ayuu ahaa oo Cabdiraxmaan Xaaji Cadow u waramayay halkani waa BBC wasaaradda deegaanka ee Puntland ayaa sheegtay inay wado dadaalo ay kula tacaalayso ayax ku degay qaybo ka tirsan maamulkaasi hay-adda cunnada iyo beeraha ee FAO ayaa sheegtay in ayaxa Soomaaliya oo hadda maraya xilligii uu dilaacayay uu khatar ballaaran ku yahay wax soo saarka beeraha iyo nolosha dadka Cabdinuur Cilmi Koor waa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ee Puntland wariye Axmed Caawil Jaamac ayuu uga waramay dhibaatada ayaxa iyo qaabka ay ula dagaalamayaan ayaxa horta muddo waa la tacaalaynay ilaa iyo dayrtii la soo dhaafay laakiin qorshahan hadda operationka oo hawada laga buufinayo waxaan bilownay 16 bisha May ee hadda inuu ku jirno imise goobaad baa tagteen hadda gobolada Puntland oo dhan waa maray kan hadda laga tacaalayo waa mid waaweyn oo ka yimid dhinaca Ethiopia gobolada Mudug iyo Cayn buu ka soo galay Puntland wuxuu ahaa mid masaafo ku socdo dheeraynaya nugaal iyo soolba aad looga buufiyey sidoo kale Sanaag ayaa shaqaalaha wasaaradda oo adeegsanaya gaadiidka dhulku ay ka buufiyeen waxaa laga buufiyey degmada Ufayn oo gobolka bari ka tirsan ma qayb wada socotaa mise qayb ayuu
hadda meel ugu degaya laba nooc buu hadda yahay. nooc waa dhal hadda dhashay oo kaasaan kuu sheegay oo deertii gacanta ku aasay dhulka oo hadda dilaacay. midna waa mid socota ah oo aad u dheeraynaya oo dhinacaas Ethiopia ka yimid. kaas ayaa diyaaraduhu ay la tacaalayeen. badidiisina hadda wuxuu isugu dhuftay intii dhibaatay intii kale gobolka bariga fog iyo gobolka Sanaag qaybtiisa sii jeeda oo buuraha leh. marka ma dhowr maylood buu kala fadhiyaa mise waa meelo kala duwan? islama socdo habeenba degmaa soo sheegaysa, tuulada habeen hore dhaafacaa oo mid kale sheegaysa, birida misna mid kale sheegaysa. marka waa dafco hirad ah oo isdaba jooga. laakiin waxaa guud ahaanba moodaa inuu dhinaca dugsiga ah ee buuraleyda isugu dhuftay hadda. marka siyaabaha aad xogtiisa aad u heshaan waa qaabkee, maadaama aad sheegtay inuu xawaare aada u sarreeyo oo ku soconayo hadba uu gurguurayo? xogta ugu badan horta dadweynaha baxsha, idaacadahana fariimo ka siinay, wacyigelin baa la sameeyey. isduwayaasha iyo degmooyinka wasaaradda dadka u jooga ayaa qabtay wacyigelin badan. dadweynaha marka waxay yihiin involved, ayagaa usoo ribood garaynaya cid alle iyo ciddii wasaaradda ay teleefanadooda hayaan, gaar ahaan degmooyinka iyo gobolada. sidoo kale waxaa jira dad 250 gaaraya oo Scots la yiraahdo oo wasaaraddu u tababartay siday usoo ribood garanayaan noocyada uu yahay, qaabku markaa ku sugan yahay, ma guurayaa, ma degay oo ma xasilay, ma orgoonaya markaas maytan miyuu samaynaya. marka dad lagu tababaro 250 gaaraya ayaa ku firfsan ayaguna gobolada dhan. agasma waxyaabaha isweydiinta mudan waxa weeye, maadaama buufin ay socoto diyaaraha iyo gaadiidkan aad sheegtay aad adeegsanaysaan, meelihii laga buufiyey ayixii ma ka suulay oo ma la dhamaystiray? saan kuu sheegayba ayuxu socotu ahaa. inta noole ka baxsataa way soconaysaa oo ma joogayso. laakiin waxa weeye operationku aad iyo aad buu successful u ahaa, wuu leeday, mid badanna waa jiraa. especially tiimamka wasaaradda oo iyagu gaadiidka iyo adeegsanaya sprayerska dul saaran gaadiidka waxay ayagu la dagaalamayeen nooca hadda dilaacay oo isagoo aan duuli karin, gaar ahaan degmada godad jiraan iyo deegaanka harwanaag iyo degmada ufayn iyo gobolka Sanaag degmada Dhahar, degmooyinka Xubeero iyo la yiraahdo noocaasi nooc yaryar aan ka cayn buu ahaa. tiimamka lugta oo dhabarka ku qaada haamaha iyo gaadiidka ayaa la dagaalamay oo buufiyey. kaasi marka dhimashadiisu way badan tahay. kan kale waxaa mulaaxado leh dawada la isticmaalaya ma aha pesticide, ma aha sun kiimika laga sameeyey, ma aha waa biopesticide. jawaabteedu marka degdeg ma aha, negaud ma aha. hawada way ka xiraysaa dawadani, meelaha ka neefsaday gelaysaa, markaasuu maalin ama laba ka bacdi dhimanaya. ka meeshii lagu buufiyey meelaan ahayn inay naftu kaga baxdo. waxaa jirta dameele uu ku degay oo dhici karta in uu cunadii iyo cunay, marka bal dhulkii beeraha oo uu ku degay ka war. taasi waa shaqo dambe aan rabno in aan eegno impact assessmentiga uu ku yeeshay deegaanka iyo beeraha. horena waa u sameynay qalkii hore. haddana tiimanku waxay u qorshaysan yihiin marka dagaalkiisa laga baxo bal in la eego assessmentiga lagu soo sameeyo muxuu asagu dhimay, suntii lagu buufinayay maxay dhintay, maxaa ka dhintay. operationa noocaasa ayaa debayaal haddii rabidnoho dadka aqoonyahanka wasaaradda u shaqeeya ay insha allahu aadi doonaan. maxso cabdinuur cilmi koor, agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka ee Puntland ayuu ahaa oo wariyay Axmed Caawil Jaamac u waramayay. markana fayraska corona ayaa saameyn weyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka. dalka Koonfur Afrika waaxda dalxiiska ayaa ka mid ah ganacsiyada uu gebi ahaanba jilbaha u dhigay xanuunka. dalkaasi ayaa hadda ku jira 7-kii 8aad ee bandow ah. waxaa la joojiyey dhammaan duulimaadyada rakaabka ee soo gala, waxaana la xiray hoteelada iyo goobaha lagu raaxaysto. arrintaasi ayaa shaqo la-aan dhigtay kumanaan Koonfur Afrikaan ah, sida uu ku soo waramayo Vumani Mkize oo warbixintan Johannesburg ka soo diray. Axmed Nagaashe ayaa soo jeedinaya. seere ku yaala meel saacad u jirta magaalada Johannesburg ayaa waxa ku yaal hodheel kuwa dalxiisayaashu u tamashla tagaan oo la yidhaahdo Iskari. hase yeeshee haatan duurjoogtii oo keliya ayaa goobta ku taxtaxaashaysa oo dad kama muuqdaan. fayraska corona ayaa dhaqaalihii dalxiiska ee Koonfur Afrika jilbaha dhulka u dhigay. Dave Astiston oo ah maareeyaha guud ee hodheelkaasi ayaa sheegaya in duruufta dhaqaale ay haysataa tahay mid aan la xamili karin. ganacsiga dalxiisku wuxuu ku dhisnaa dadka socdaalka ee dunida uga soo daawasho yimaad. laakiin mar haddii socdaalkii dadku joogsaday, hodheelkiisii wuu haawanaya oo kuraasta iyo gidaarada uunbaa isdaawanaya. toddobaadadii u horreeyey waxaan isnidhi aan dhabar adeegno, waa laga bixi doonaa dhibaatada. laakiin markii dambe ayaa khasaaraha gaaray dhaqaalaha dalxiiska ku dhisani. khasaarahaasi oo sii batay oo aad u kordhay waxauna sababay in dad badan oo qaybaha ka shaqaynayay ay dhici karto in aanay weligood ka soo kaban doonin khasaaraha gaaray. shaqaalaha kooban ee hodheelka jooga
joogo mooye cidda keliya ee haatan goobtani timi waa keligay waxaana suurtagal ah inay tahay muddo 2 bilood ku dhowaada qofkii soo gaadhay inaan ahay goobtan run ahaantii muuqaalka goobta iyo jawigu waxay kugu noqonayaan lama filaan oo waa jawi degan oo aan hore looga baran hase yeeshee shaqaalaha hodheelka seerahan ku yaala ka howlgala iyo guud ahaanba dadka ganacsigoodu ku tiirsan yahay dalxiiska ee reer Koonfur Afrika waxa fayraska corona ku yeeshay saameyn taban oo curyaamisay dhaqaalahoodii waxaana intaa dheer in iyadoo maalin kasta dad hor leh oo uu soo ritay cudurku laga soo sheegaya dalka walaac horlihi u dheer yahay dhibaatada gaadhay oo ah talow marun ma laga bixi doonaa mashaqadan Koonfur Afrika 22 qof ee shaqeeya midkood ayaa ka shaqeeya dalxiiska waxaana jirta in qofkii kaliya ee shaqo haysta dalkaasi ay isagana ku tiirsan yihiin 5 ilaa 6 qof oo kale oo bilaa camalahi shaqalaantan dhanka dalxiiska ee cudurkani ragaadiyay waxay naafo ku noqon doontaa bulshada dalkan Salomi Chungu oo ah haweeney ku leh magaalada Johannesburg albeerko qololkeedu yihiin mudalayaal dhaqameedkii Afrika ayaa ka cabsi qabta in dalxiisku sidaaba ku baaboo I don't know whether the borders will be open. garan maayo in xuduudaha la furi doono oo dalxiisayaashii soo noqon doonaan ama in ay ka cabsan doonaan inay dalka yimaadaan maadaama qaaradan Afrika maalmihii ugu dambeeyay cudurku soo gaadhay iyo sidoo kale dhibaatada cudurkan iyo saameyntii dhaqaale ee dalalkooda saameysay ganacsiga dalxiisku waxa uu dhaqaalaha guud ee dalka Koonfur Afrika ka yahay 3% intii aanu fayraskan corona ka dilaacin dalkana waxa uu ahaa nooca kaliya ee ay ka muuqatay Sansana inuu korayo marka la eego guud ahaan dhaqaalaha Koonfur Afrika ee sii liicayay Season Jona oo ka tirsan wakaaladda dalxiiska ee Koonfur Afrika ayaa sheegaya in soo kabashada koobaad ee dhaqaalaha dalxiisku uu u baahan doono in dadka dalku ay iyagu u tamashla tagaan goobaha dalxiiska ee wadankooda ku yaal The recovery in itself will follow global trends. soo kabashada dhaqaaluhu wuxuu qaadi doonaa dhabaha caalamiga ah oo marka ugu horeysa waxa furmi doona in dadka dalka bilaabaan in ay goobaha dalxiiska u tamashla tagaan kadibna wadamada gobolka ugu dambayntana dalxiisayaal dunida kale ka iman doona ay ku soo dhiiran doona waxaana weeye marka bandowgu dhammaado dadka marka hore waxay ka maagi doonaan inay meelo fog tagaan waxay isku koobi doonaan magaalooyinka ay degan yihiin marka dambese waxaa bilaabmi doona duulimaadyada caalamiga ah laakiin inta hore dhaqaalaha gudaha unbuu ku xidhnaan doonaa arrinta xiisaha leh ee soo kordhaysay intan lagu jiray bandoodan ka dhalatay fayraska corona waxa weeye in ganacsatada leh hodheelada ku yaala seerayaasha ugaadha ee dalkani inay bilaabeen inay muuqaallo toosa ay ka soo duubaan goobahaas bilicda leh iyo duurjoogta ku nool oo ay ku baahiyaan internetka taasoo ujeeddadoodu tahay inay ku xiisageliyaan oo ay ku soo jiitaan dadka dalxiiska jecel si marka xayiraadda la qaado ay malaha ugu soo dalxiis tagaan dalkan waxaase xaqiiqo ah inaanay arrintani wax dakhli ah soo gelinayn ay suurtagal tahay in marka wax furfurmaan ay dadkii daawaday muuqaaladaasi u soo xiisi doonaan oo ay u dalxiis yimaadaan oo ganacsiguna uu sidaa ku kobci doono mar kale waa tahay axmed nagaasho aad buu u mahadsan yahay markana wararkii cayaaraha xalay ee waxaa dhacay kulan ka tirsan horyaalka jarmalka ee bundesliga waxaa wada ciyaaray kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Mainz 05 RB ayaa 5-0 kaga adkaatay kooxdaasi Mainz saddex ka mid ah goolasha RB Leipzig waxaa u dhaliyay Timo Werner waana goolashiisii ugu horeeyay ee uu dhaliyo tan iyo markii dib loo bilaabay horyaalka Bundesligaha kadib markii 2 bilood la joojiyay cudurka coronavirus awgi idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaa maxamed cabdiraxmaan ayaa soo saaray anigoo ah Kawthar Maxamedna waa idinla socodsiinayay tan iyo kulankeena xiga nabadgelyo